kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada Qol Media TV waxaynu xogta qarsoon kula wadaagi doonaa militariga Myanmar oo kala cayriyay banaanbaxayaal ka soo horjeeday afgambiga waddankaas ka dhacay iyadoo ay maalinka labaad hogaamiyaashii hore ee xisbiga talada laga tuuray xabsiyada waddankaasi ay ku geeriyoodeen. Ku soo dhawaada mar kale xogta qarsoon iyo Qol Media TV. weerarka lagu qaaday xarunta shaqaalaha tareenka ee shaqo joojinta ka soo horjeeday xukunka military ayaa yimid kadib markii dhimashadii ilaaliyihii Saw Mayat Ling oo ahaa sargaal ka tirsan xisbigii talada laga tuuray ee hogaamiyaha u ahayd Aung San Suu Kyi ee xisbiga NLD dhimashadiisa la xaqiijiyay. Waa kooxdii labaad ee ku dhimatay xabsiga muddo 2 maalmood gudahooda. Ciidamada Myanmar waxa ay weerareen xarun ay joogeen shaqaalaha tareenka. Ciidanka ammaanka ee waddanka Myanmar ayaa weerar ku qaaday xarunta shaqaalaha ee shaqo joojinta shaqaalaha tareenka ee ka soo horjeeda xukunka military iyadoo oo xildhibaano xilka laga qaaday ay magacaabeen kusimaha madaxweyne ku-xigeenka si uu ula wareego shaqooyinka siyaasiyiinta xiran. Shaqaalaha tareenka Yangon ayaa qayb ka ahaa kacdoonka shacab oo curyaamiyay ganacsiga dowladda, waxaana ka mid ahaa shaqo joojinta bangiyada, warshadaha iyo dukaamada. Haatan waxaa la isla marayaa qaybtii tareenka tan iyo markii ciidanku talada ee afgambi uga tuureen Aung San Suu Kyi hogaamiyihii dowladdaasi 1 February 2021. Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada ammaanka oo ku dhow xarunta shaqaalaha tareenka. Hal qof oo ku lug lahaa shaqo joojinta ayaa qadka taleefanka ku sheegay in ay ka baqayaan in dhaqdhaqaaqyo xoog leh lagu sameeyo. Waxaan u malaynaynaa in ayna qabanayaan ama ayna xirayaan, fadlan caawiya. Waxaa sidaas yiri qof ka baqayay in la xiro. Barnaamij toos looga baahiyay Facebook ee aaga ay dadku ka qaylinayeen ay ka socdeen banaanbaxyada ayaa sidaani laga yiri: miyaanan ahayn shaqaale? haa, waa midownahay. qof ka faalooday arrintan ayaa ku andacoonaya in booliska ay isku dayayeen in ay ka saaraan xeryaha una hanjabeen toogasho toos ah. Faahfaahin si madax bannaan looma xaqiijin karo. Booliiska iyo saraakiisha ciidanku kama jawaabin codsiyada in ay jawaab ka bixiyaan faallooyinka la dhiibtay iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee lagu eedeynaya inay ka dambeeyeen militariga iyo booliska. Ha hilmaamin haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe tiraahdo channelka si aad u hesho xoga dheeri ah. Gambaleelka furo lana wadaag asxaabtaada. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Intaynu xog midaan la mid ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.